saynisyahano ayaa daaha ka rogay nooca bishimaha qofka iyo dabeecadaha uu leeyahay. qaybaha jirka ayaa door muhiim ah ku leh dabeecadaha iyo shakhsiyadda qofka. qaabka dibnaha ama bishimaha way ku kala duwan yihiin bani'aadamka. markaad faraxsan tahay ama aad murugaysan tahay amaba se aad xanaaqsan tahay, waa afkaaga kan ugu horeeya ee inta badan bixiya dareemaha. ugu horeen fadlan saan u kala ogaano in muuqaalada noocan ah aan soo badinayno, fadlan tixgeli inaad like ku muujiso. waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad inoogu like gareysaan muuqaalada aynu soo gelino. haddaba aan u galno. qaabka bishimaha waa 9 nooc. aan ka bilowna nooca koowaad, bishimaha waaweyn. haddii bishimahaagu ay noocan yihiin, waxaad tahay qof jecel inuu caawiyo dadka ducafada ah. waxaad leedahay dareen xoogan, waxaadna ka fikirtaa dareemaha dadka kale. dadku waxay jecel yihiin la joogistaada maadaama aad tahay qof naxariis badan oona dadka u dhimriya. 2 bishimaha kor ayaa ka weyn kan hoose. dadka leh bishimaha noocan ah waa kuwa soo jiidasho leh, waxay nolosha ka leeyihiin fikrad sare, waxayna sidoo kale leeyihiin awood ay ku soo jiitaan dadka kale, waxayna si fudud u jecel yihiin inay noqdaan kuwa fani ah oo kaftan badan. 3 bishimaha hoos ayaa ka weyn kan kore. dadka leh bishimaha noocan ah waa kuwa firfircoon oo ciyaaraha aad u jecel, waxayna aad u xiiseeyaan booqashada goobo cusub. waa kuwa jecel oona u furan wax kasta oo cusub, sidoo kale waa kuwa asxaabtooda ku hogaamin kara wadada himilooyinkooda. 4 bishimaha caadiga ah. dadka leh bishimaha caadiga ah waa kuwa si caqliyeysan u xaliya nooc kasta oo howl ah oo lasoo hordhigo. waxay diiradda saaraan dhagaysiga dadka kale, kuma niyad jabaan dhaleecaynta dadka kale, waana kuwa dadka aad u xushmeeya, waxayna jecel yihiin qosolka iyo kaftanka. 5 bishimaha khafiifka ah. dadka leh bishimaha khafiifka ah waa kuwa doorbida keli ahaanshaha, iyaga ayaa isku kalsoon, waxayna la qabsan karaan dhibaato kasta. haddii aad leedahay dibnaha khafiifka ah, markaa waxaad u badan tahay inaad tahay qof kalgacayl badan. si dhaqsi ah ayaad u heli kartaa luqadda ay dadku wadaagaan, waxaadna dadka kale ku qiimaysaa ficiladooda. 6 bishimaha dhankiisa sare uu u samaysan yahay qaabka 3 geesoodka ah. dadka noocan ah badanaa waxay noqdaan kuwa farshaxanka aad ugu wanaagsan, waxay leeyihiin xasuus aad u fiican, waxay ilaaliyaan xiriirka qof kasta oo ay yaqaanaan, mar walbana way ka warqabaan waxa socda. waa kuwa bulshaawi ah. 7 bishimaha qaybta sare ka wareegsan. haddii aad leedahay bishimaha sidani oo kale ah, waxaad u badan tahay inaad tahay qof naxariis badan oo xasaasi ah, waxaad ka xanaaqdaa inaad guuldaraysato, waxaadna heshaa waqti aad ku caawiso dadka kale. 8 bishimaha qaybta sare oo aan lahayn wax filtram ama calaamad ah. dadkani waa kuwa ugu mas-uulka iyo kalsoonida badan, waa kuwa aan ku fikirin wax kasta inaysan macquul ahayn, waa kuwa dhanka wanaagsan wax ka eega, wax walibana waxay ku qabtaan waqtigooda saxda ah. xaalad kasta oo jirto waa kuwa lagu kalsoonaan karo. 9 bishimaha yaryar. dadka bishimaha noocan leh waxay u muuqdaan kuwa danaystayaal ah, laakiin ma ahan sidaasi. waa kuwa saaxiibtinimo daacad ah leh, weligood dantooda kama saaraan tan dadka kale. wax kasta oo ay samaynayaan waxay u sameeyaan qaab wanaagsan. ugu dambayn, haddii aad xiisayso inaan soo badino muuqaalada noocan ah, like saar. mahadsanid.